magaalada Baraawe waa magaalo xebeed ka tirsan maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waana magaalo aad u qurxoon oo leh dhismooyin taariikhi ah kuwaas oo ku teedsan xeebta magaalada Baraawe waxa uu soo dalxiis taga dad badani oo ka soo safro gobolada dalka iyo dibadaha waxayna ka mid tahay goobaha ku haboon dalxiiska sida ay sheegayaan dadyooga ku nool magaaladani kuwa mahoteli na mahala kwa dalhisi kwa watu watataka kudalhisata kila chinu kwa inapatua wala kule sije kule kwa mahoteli tunataraja inshallah na kuambia watu kuje kwaona kwa yao kwaona kwa hoteli inshallah inshallah jigo karka telefishinka ya Universal na kwa salamu goobtani waxa hadda lagu wadaa in la casriyeeyo lagana dhiso meelo nasasho iyo maqaayada sida ay sheegayaan dadka u ololeenayo in la qurxiyo goobaha ku haboon dalxiiska magaalada نقيم صدام وانت وكوميني وكوي بناني كل ما هذا نقيم صدام كصدام وإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا وفلسفية محمد جيلاني نرجيكم هذا الدلحيس صورة زايدي نانغالاني بين نوما تيوانا تابادا كل ما هذا نانغالاني أمني وانتو بينجي تيدو أبا وانتو موفدنا كنندو ناسي أمني كل تينتو تمهلا صورة جبي صورة وانتو أنا سكري أكو إبناني وانتو هوا خدري إبردي إبناني دوني أبا مهمين سي مهم صورة tawada kila chintu barwaqa iko kwani nakhtomo la kharashik wakanti zingine nantino iko jisi ni bahdiladi ka kitu na kakinu wanto ko ibadani na khinambida tafadhal rudani ntinu wakani ntinu ntindini takhadiro kwa sininde wanto wingine kwa wana kwa ibanyani wanto wingine tawakhzailo apa kwa nakhima kila chintu sinindeni degani wanto wenen diwo wako ndoni igemani wakani degani inu chimo hili adorasho apa inakhsulo kwa inakwa do wanto dalxiiska Soomaaliya ayaa dhawaanahan soo xoogaysanayay waxaana dadka u soo dalxiiska Soomaaliya kamid ah dadyow ajaanib ah oo ka kala yimaada wadamada caalamka dadka qaar waxay aaminsan yihiin in haddii nabad buuxda la helo oo dalxiiska dalka xoogaysanayo dhaqaalana laga heli doono maadaama Soomaaliya ay leedahay xeebta ugu dheer ee Afrika Baraawe waxaan ku sugnaa ilaa 3 maalmo taas maalmood aan ku sugnaa magaalada aad ay soo jiidatay waxay leedahay xeebaad qurux badan sara qadiimi ah goobo taariikhi ah waa magaalada dalxiis ku fiican aan aad uga helay sida xeebteedu ay nadiif ku tahay magacayga waa Sahra Abuukar Cali maanta waxaan taaganahay xeebta Baraawe oo u jeedin xeeb sida qurux badan tahay waxaan ku jirnaa qaybaha kamid ah qaybaha dalxiiska meesha aan taagana waa hore waxaan u soo sheegnay inaan jilaani aadne laakiin maanta waxaan joognaa Naraani meel la dhahay cidii hore u taqaan way taqaanaa cidiis aan hadda aqoonin way baranaysaa insha Allah qurbo joogta Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa gaar ahaan reer Baraawe dadka qurbaha ku nool inay imaadaan degmadooda ee ku soo dalxiisaan waxaan leenahay deegaan aad iyo aad u qurux badan ilaahay wax walba uu manaysta alxamdulillah rabbil caalamiin inta naga maqan inay noo imaadaan anaga hadda waxaan ku hoolanahay inaan meeshan ka dhisno hoteelo qurux badan meel dhalinyarta ay ku caweeyaan oo lagu soo dalxiiso maadaama hadda meeshan ay tahay goob aad iyo aad u baaxad weyn aadana ay banaan tahay aan lahayn meel goob lagu nasto laakiin haddaan ku hool jirnaa inaan meeshan wax ka dhisno magacaygu waa Maxamed Sahal Maxamed waxaan socdaal hawleed ku imid magaalada Baraawe oo ah magaalo xeebeed ka ahna magaalo madaxda maamulka Koonfur Galbeed hawsheeni kadib waxaan asxaab aan isla soconay u soo dalxiis tagnay magaalada meel banaankeeda Manaraani la yiraahdaa waxayna ku taalaa xeebtay ku taalaa meel aad u qurux badan oo jawigeedu aad u fiican yahay waaye xeebtii oo ma sha Allah badiyo iyo ku dhinac taalo oo jawi iyo leer qabow ay ka soo baxayso dalxiiska Soomaaliya oo soo maray marxalado kala duwan tan iyo sanadkii 1960kii wuxuuna kamid ahaa hantida iyo hay'adihii dhisnaa ee dalka iyo kaabayaal dalxiis oo gumeystihii Talyaaniga uu ku wareejiyay dawladii Soomaaliya ka curatay 1960kii Ismaan Aweys Bahar telefishinka caalamiga Universal TV Baraawe